liitaa. Midna aan ku raaciyo beddel fikirkaaga ah anigoo jaamacad ka soo baxay miyaa xirfad noocaana ka shaqayn kara. Caalamka intiisa kale ayagoo double master ah ayay shaqooyin caadiya ka shaqeeyaan. Habkaad wax u soo saaranaysid iyo aqoontaadu maanta iskuma xirna. Kaliya dadku waxay ku dadaalaan qaabka financially u noqon lahaayeen dad stable ah. Financially dad deggan sida u noqon lahaayeen. Ay u baahan yihiin nolosha ay u baahan yihiin ay kaga guul gaari lahaayeen. Taana si aad kaga guul gaarto waxay u baahan tahay in aad hoos ka soo bilaawdid. Guriga haddaanan hoostan laga bilaabin, aasaaska laga bilaabin, lama dhammaystiri karo halka ugu sarreysa, saqafka lama saari karo. Noloshuna waa sidaa. Inaad soo bilowdo hoos ka soo bilow shaqooyinka caadiga ah normalka ka soo shaqeey. Anigana kula hadlaayo shaqooyin normal ah ayaan ka soo shaqeeyey, aan ka soo bilaabay. Assalaamu calaykum iyo kulanti wanaagsan. Waxaan kuu rajaynayaa inay maalin qurux badan kuu tahay. Isku noqod wanaagsan mar kale. Muddooyinkan waa ka maqnaa bartayda YouTube-ka. Waxaa lagu jiraa waqtiyadii fasaxa marka fasax yar oo gaaban oo qurux badan ayaan ku maqnaa. Marka hadda waa soo laabtay. Mawduucyadaynii iyo barnaamijyadeennii sidii caadiga ayay ku soo laaban doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Maanta marka muuqaalka waxaan rabaa inaan kugula wadaago dhowr xirfadood oo aan isdhihi karo waa xirfado maaragtay faa'iido u leh dhalinyarada amaba ay ka faa'iideysan karaan dhalinyarada markaa danaynayso. Xirfadaha markaan ka hadlayo ama xirfadaha markaan samaynayo baaritaanadooda waxaan isku dayaa in markaa xirfadaha ay noqdaan xirfado online-ka iyo xirfado markaasi kuwa caadiga ama soft skills ama hard skills inay u kala baxaan. Maadaama saa aan samaynayno ama sidaan u samaynayo waxay tahay dhalinyaradu isku dooq maahan. Qof walba wuxuu jecel yahay inuu xirfadiisa markaa uu jecel yahay ama skills-ku u baahan yahay inuu barto ama uu ku shaqaysto. Marka xirfado badanaa jira online-ka iyo weliba xirfadaha caadiga gacanta laga qabto. Haddii qofka online-ka uusan waxba ka aqoonin dee xirfadaha caadiga inuu bartana way qurux badan tahay si uu ugu shaqaysto wax ku soo saarto. Xirfaduhuna waa xirfado yacni daily life-keena maaragtay aan wax kaga soo saarano. Nolol maalmeedkeena waxyaabaha aan cuni lahayn, labiskeena, gurigeena, kiradeyna, wax kasta markaasi daily life-ka soo hoosgalaya ayaa maaragtay loogu talagalay in qofka uu ku qabsado amaba uu kaga shaqaysto. Muuqaallo hore oo waxaa jiray xirfado muhiim ah aan kaga hadlay oo dhammaantooda yacni dhalinyaro badan ay aad u daawadeen, dhalinyaro badan falcelin ay ka soo bixiyeen, dhalinyaro badanna ay yacni su'aalo iga weydiiyeen ayagoo u baahan in xirfado markaasi gacanta laga qabto qaarkood aan la wadaago. Mawduucan ka soo sameeyey dhowr xirfadood oo gacanta laga qabto. Marka maanta waxaan jeclaystay marka in aan 5 xirfadood aan maaragtay kula wadaago. Xirfadahanin waa xirfado caadi loogu shaqaysto. Waxaa macquul ah inaad taqaanid qof ku shaqaysta ama saaxiib ah ama waalid ama walaalkaaga inuu ku shaqaysto ama walaal qof kuu ah. Haddii adiga aad jeceshahay inaad ka shaqaysatidna aad dhab ahaantii aad ka shaqaysan kartid, waa xirfado nolol maalmeedkaaga iyo tan qoyskaaga maaragtay aad ka soo saaran kartid. Xirfaduhuna waa la hormariyaa. oo xirfada taqaanid haday xirfad horumarin laga samayn kara ay tahay inaad hormarisid oo waxaan mar walba waxa qurux badan in waxa horumar aad ka samaysid haddii laakiin aad halkad ka bilowday oo keliya aad iska taagnayd horumar ma samaynaysid marka inaad horumar ka samaysid ku dadaal xirfad koowaad horta waxay tahay xirfadda timo jarista xirfadda timo jaristu dhalinyaro badan ayaa ku shaqaysta oo maaragtay noloshooda iyo tan reerkooda ka masruufta
waa xirfad ka mid ah xirfadahan is dhihi karo een, xafiiska qof ka shaqeeya sometimes way ka lacag badan yihiin. Anigu aragtidayda siday ila tahay. Waayo meelaha tamaka lagu jaro ee waaweyn, weliba timo-jarayaasha hadda hormaray ee maaragtay loo furay barber shopska loo furay, way ka lacag badan yihiin ama way ka qaalisan yihiin kuwa caadiga ah ee maaragtay traditionalka ama qaabkii hore ee qofka waddada loogu jaray ama markaa meel iska yaroo iska caadi loogu jarayay. Waa meelo aad loo qalabeeyey, qalab qurux badan la dhigay, shaqaalana markaa lasoo shaqo geliyey si markaa ay client-iga ama dadka ugu adeegaan. Qofka timo-jaraha ah ee timo ka jara ama barber-ka ah, wuxuu leeyahay gunno ayuu leeyahay. Gunnadu yacni biilkiisa waxaa bixiya kambaniga uu ka tirsan yahay. Heshiis inay tahay aan jeclahay laakiin intan ka war hayo wuxuu qaadan jiray lacagtiisa biilka maadaama uu kambaniga uu ugu shaqeeyo xirfadiisa timo jarista. Marka wuxuuna ku lahaa share buu ku lahaa lacagta maalintii la shaqeeyo inta qofeed ee kastamarkiisa ee maalintii ugu adeego. Habeenkii waxaa suurtagal ah inuu marka kala hoydo isagoo 35, 40 qaarkood $50 inay kala hoydaan ayaa maaragtay suurtagal ah. Oo waxay ku xiran tahay isfahanka kambaniga iyo qofka timo jaraha xirfadiistaha ah ayay maaragtay u dhaxaysaa. Marka xirfadan waad baran kartaa, waxaad ka baran kartaa barta YouTube-ka, waxaad ka baran kartaa TikTok aad ka baran kartaa, waxaad ku baran kartaa walaalahaaga, saaxiibadaada ayaa timaka u jari kartaa. Kadibna markaas waxaad noqonaysaa ugu dambeyn qof professional ah oo xirfada profession ku ah oo ku shaqaysta. Xirfadan si madax bannaan waad ugu shaqaysan kartaa, dadna waad ugu adeegi kartaa oo labadaba adiga iyo choice-kaaga ama inaad dad ugu adeegtid oo kambani aad maaragtay ugu shaqaysid kadibna sidaasi ay bishii mushaaraad bishii maalintii wixii aad qabatay wax lagaa siiyo biilkaagana lagaa bixiyo. Haddii aad si madax bannaan ugu shaqaysanaysidna waad ku shaqaysan kartaa oo qof madax bannaan aad noqonaysid, qalabkaaga inta soo iibsatid markaasi aad noqotid qof barbiyeeri ah inaad noqotid oo markaasi ugu shaqeeya xirfadiisa timo jarista dadka ugu shaqeeya markaa samaysta kambani u gaar ah. Kambani u gaar ah portfolio inta samaystid maxaa la yiraahdaa kaararkii dadka la siinayay markaad timo ku jirta aad samaystid, inaad maaragtay social media samaystid kadibna sidaasi aad adigu si madax bannaan xirfadan ugu shaqaysta. Haddii aad doonto waxaad samayn kartaa inaad gaari inta iibsatid aad maaragtay barber shop aad ku dhex samaystid oo gaarigaasi qof walba meeshiisa inta ugu tagtid aad ugu adeegtid. Waad awoodi kartaa haddii aad gaari inta iibsatid gaarigaas aad barber shop maaragtay ahaan aad u diyaarisid oo aad maaragtay wax kasta markaa barber shopka laga heli kara aad ku samaysid kadibna client-iga aad ugu adeegtid. Maanta waxaa jira dad danaynaya iyagoo guryahooda jooga in loogu adeego sida waddamada hormaray ka dhacda. Marka waad awoodi kartaa, lacagna waad ka samayn kartaa. Xirfadda labaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxay ka mid tahay ayadana xirfadaha lagaga shaqaysto magaalooyinka aad u waaweyn. Xirfadaha lagaga shaqaysto ayay ka mid tahay. Xirfadan waqtiyadan dambe waxay sii noqonaysaa xirfadaha aadka loo daneeyo. Xirfadaha ay doonayaan dadka maaragtay hoteelada iska leh, dadka maqaayadaha iska leh, dadka coffee shopska iska leh iyo dadka goobaha dalxiiska ama milkiilayaasha ay u baahan yihiin. Xirfadan waa xirfadda waiter-nimada. Haa, xirfadda waiter-nimada waa xirfadaha lagu shaqaysto kuwooda ugu wanaagsan. Marka xirfada laga hadlo, anigu dhalinyaro ahaan waxaa laga yaabaa inaan isdhaxno matana xirfada, matana saan maqaayadaan ka shaqaynaya inaad dhahda laga yaabo laakiin wrong waa taas. Waa xirfad aad ku shaqaysan kartid, waxna ka soo saari kartid, reerkaagana aad ka biili kartid. Marka xirfadan baro, waqti geli. Hadday jiraan iskuulo laga barto xirfadii koowaad aan soo sheegnay barber-ka ama timo jaraha laga barto ama qofka siduu timo jaro u noqon lahaa iyo xirfadan waiter-nimada hadday jiraan iskuulo laga barto waqti geli kadibna markaasi sidaa ku bilow.
oo meeshan maanta waxay u baahan tahay oo kaliya in laga shaqaysto. Qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay in jeebkiisa inay maalin walba wax soo galaan uu ka fikiro. Dunidu way isbedeshay. Maalin walba dadka dhalinyarada inay jeebkooda wax soo galaan ku fikiro inaad noqotid ku dadaal. Labada xirfadood marka meelaha laga barti ka raadi YouTube xataa waad ka helaysaa. Sida timaha loo jaro waad ka helaysaa. Sida waiter loo noqdo steps ayaad ka helaysaa. Aqoon guud ayaad ka qaadanaysaa. Kadibna waad ku shaqaysanaysaa. Marka labada xirfadood waqti geli. Xirfadda saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxaa is dhihi karaa xirfaddan haddii hab professional ah, hab aad u xirfadaysan haddii aad u baratid xirfaddan ee aad si madax bannaan aad ugu shaqaysid lacag waad ka samayn kartaa. Reerkaagana waad ka dibiri kartaa. Noloshaadana wax badan oo isbeddel ayaad ku samayn kartaa. Xirfaddan waa xirfadda dayactirka mobilada. Dayactirka mobilada waa xirfado lagu shaqaysto. Waa xirfado wax lagu soo saarto. Kaliya waxayna kaaga baahan tahay in aad baratid. Maanta waxaa jira iskuulo iyo hay'ado bixiyo xirfaddan sida qofka mobilka uu u hagaajin lahaa, u dayactiri lahaa. Kadibna sidaasi aad ku bilowdid mobile dayactiritaankaasi meel yaroo qurux badan, dukaan yaroo qurux badan intaad yara samaysid aad dadkii mobiladii ka ciladoobay aad ugu dayactirtid. Wixii ka hadlaysan aad ka saartid. Wixii dhib ah oo jira haddii mobilka wax laga qaban karo, haddii wax laga qaban karin aad qofka si caadi ah aad ugu sheegtid. Waxaan is dhihi karaa marka xirfaddan lacag waad ka samayn kartaa. Waa haddii mindset-kaada aad beddeshid. Ma anigaa mobil dayactiraayo, ma anigaa kan samaynayo. Haddii niyaddaada taa ku jirto horumar ma gaaraysid. Xirfadahana kama shaqaysan kartid. Waxna kama soo saari kartid. Waxay noqonaysaa marka inaad guriga iska dhex fadhisid. Inaad darjiinadii aad fadhi jirtay aad waqti u qaadid. Marka saysan taa u dhicin ha is dhihin aniga ma samayn karaa. Anigu waan samayn karaa ku beddel. Dadkana ha dhegeysan. Xirfadda afraad ee aan rabo inaan kula wadaago waa xirfad ayadana aan is dhihi karo sanadaha soo socda waxay noqon doontaa xirfadda loogu baahida badan yahay. Xirfaddan waa xirfadda makaanikanimada. Haa, xirfadda makaanikanimada waa lagu shaqaystaa. Rag baa wax ku soo saarto. Laakiin nidaamka loogu shaqeeyo haddii aad wax ka beddeli kartid, ee aad hab professional aad isku diyaari kartid, ee aad waqti u geli kartid, intaad baratid, kadib markaad baratidna aad hab professional aad ugu shaqaysan kartid, lacag waad ka samayn kartaa. Oo client-igu maanta waxay u baahan yihiin dad si daacad ah ugu adeega. Dad adeegooda si qurux badan ugu qabta. Dad baabuuradooda si qurux badan ugu dayactira. Dad good communication ah, good communicators ah. Qof ay wanaagsan tahay xiriirku dadka la samaynayo. Qof jecel inuu shaqadan uu horumar ka gaaro. Haddii ay helaan lacag walba ee markaasi aad u qalantid way ku siinayaan. Kaliya inaad ku dadaashid inaad xirfaddan baratid. Markaad xirfaddan baratidna aad hab professional ah aad isku diyaarisid. Si madax bannaan ayaad ugu shaqayn kartaa. Haddii kalena waxaad ugu shaqayn kartaa company markaa in aad qayb ka noqotid. Haddaad si madax bannaan u shaqaysanaysid inaad is diyaarisid qalabkaaga wax kasta makaaniga ku saabsan aad diyaarsatid. Xataa gaadiidkii aad dadka ugu adeegi lahayd markii aad u tegaysid ee aad guryahooda ugu dayactiraysid gawaaridooda ama baabuurtooda inaad heli kartid. Kadibna sidaa aad lacag kaga samaysid. Waa xirfad aan is dhihi karo maanta haddii aad dalka joogi lahayd waa xirfad wax ku soo saari kartid ama xirfad aad ku shaqaysan kartid. Waa sidaan anigu aan aaminsanahay. Waan aad u jeclahay inaan waxyaabo badan aan tijaabiyo. Waxyaabo badan oo aan ka soo shaqeynay way jiraan. Marka adiga haddii aad dhalinyaro tahay oo aad jaamacadda soo dhigatay oo aad soo dhamaysay jaamacaddii ama aad hadda ku taamaysid inaad jaamacadda ka soo qalin jabisid just samee. Wax isku day. Xirfadahan mid ka mid ah iska dooro. Mid ka mid ah dooro. Laba ka mid ah dooro. Ku shaqayso wax ku soo saar. Muhiimaddan waxay tahay wax soo saar bay muhiimad u tahay. Xirfadda shanaad ee ugu dambeysa ee aan muuqaalkan ku soo gabagabeynayo waa xirfad rag iyo dumarba ay waqtiyadan dambe aad ugu soo batay. Waa xirfad la isla wada fahmay. Waa maxay xirfaddaas? Waa xirfadda baaristanimada. Baarista haddii aadan garanaynin waa qofka kafeega dhadhanka leh ee quruxda badan ee ubaxa lagu soo dul sawiray kugu samaynaya ayaa la yiraahdaa baaristi.
adigoo cafeteria tagay waxa laguu keenaya qofka soo sameeya waa barista. Kafeega dhadhanka badan, carafta badan, quruxda badan ee ubaxa ku dul sawiran waxa soo samaynaya waa barista. Wuxuu ku shaqaysanayaa xirfadiisa baristinimada ama xirfadeeda baristinimada ayay ku shaqaysanaysaa. Oo waxaa jira gabdho maanta ku shaqaysta xirfadda baristinimada. Marka haddii aad danaynaysid inaad baratid xirfaddan baristinimada, waxaad ka baran kartaa baraha YouTube-ka iyo TikTok ayaad ka baran kartaa. Waxaad tegi kartaa iskuulada dadka lagu baro xirfadda baristinimada ayaad tegi kartaa. Kadib markaad soo barato suuqa baristinimada, waxaa ka bannaan shaqooyin ayaa ka bannaan sidaan anigu aan aaminsanahay. Waayo waxaa badanaya coffee shopska ayaa magaalada ku soo badanaya. Magaalooyinka aadka u waaweyn waxaa ku soo badanaya coffee shopska. Hoteeladu way u baahan yihiin, coffee shopska u baahan yihiin, maqaayadaha, restaurantiyada caalamiga ee dalka ku soo kordhay way u baahan yihiin qof barista ah oo professional ah oo diyaarsan oo ma aragtay good communicator ah, well skilled ah way u baahan yihiin. Mala socotaa? Marka xirfaddan baristinimada waqti geli oo barta YouTube-ka ayaad ka baran kartaa. Waxaa ku soo gudbiya rag iyo dumar Soomaaliyeed ayaa ku soo gudbiya xirfaddan baristinimada. Marka halkaasi ka baro, waqti geli, la xiriir barofesorada, la xiriir macallimiinta, la xiriir. Yah, dan xirfaddaa baro, waqti geli almost 5 months, less than 5 months, 2 months maybe. 2 bilood waxaa macquula inaad barista buuxa aad ku noqotid. Kaliya samaynta kafee qurux badan oo dhadhan leh oo ubaxaysan. Haddii aad garatid intaas, lacag waad ka samayn kartaa. Hadhowna waxaad ugu adeegaysaa hoteelada, coffee shopska iyo maqaayadaha waaweyn ee casriga ah ayaad maaragtay ugu shaqay kartaa. Marka xirfaddan ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waa 5 xirfadood oo aan isdhihi karo qofka dhalinyarada ee raba inuu noloshiisa wax badan ka bedelo, wuu ka bedeli karaa, wuuna ku shaqaysan karaa. Xirfadda koowaad waa xirfadda timo jarista. Xirfadda labaad waa xirfadda waiter-nimada. Xirfadda saddexaad waa xirfadda dayactirka mobilada. Iyo xirfadda afaraad oo ah xirfadda makaanikada inaad noqotid qof makaaniga inaad noqotid oo baabuurta hagaajiya, baabuurta dayactira. Iyo xirfadda ugu dambeyso ee shanaad oo ah xirfadda baristinimada. Waa 5 xirfadood oo ma aragtay haddii aad baratid aad wax ka soo saaran kartid. Marka yay sugaysaa oo keliya adiga oo keliya ayay ku sugaysaa. Midna aan ku raaciyo bedel fikirkaaga ah anigoo jaamacad ka soo baxay miyaa xirfad noocaana ka shaqay kara. Caalamka intiisa kale ayagoo double master ah ayay shaqooyin caadiya ka shaqeeyaan. Habkaad wax u soo saaranaysid iyo aqoontaadu maanta iskuma xirna. Kaliya dadka waxay ku dadaalaan qaabka financially u noqon lahayn dad stable ah. Financially dad degan sida u noqon lahaayeen. Ay u baahan yihiin nolosha ay u baahan yihiin ay kaga guul gaari lahaayeen. Taana si aad kaga guul gaarto waxay u baahan tahay in aad hoos ka soo bilaawdid. Guriga haddaana hoosta laga bilaabin, aasaaska laga bilaabin, lama dhammaystiri karo halka ugu sarreysa, saqafka lama saari karo. Noloshuna waa sidaa. Inaad soo bilowdo hoos ka soo bilow, shaqooyinka caadiga ah normalka ka soo shaqeey. Anigana kula hadlayo shaqooyin normal ayaan ka soo shaqeeyay, aan ka soo bilaabay. Marka ha isdhihin walaal, hadda bilow 5 xirfadood, 2 mid ka mid ah dooro, baro, kuna shaqayso. Marka muuqaalka halkaas ayaa ku soo gabagabaynayaa. Waa inoo muuqaalka xiga haddii aad nagu cusub tahay. Waa inoo farxad inaad nagu soo biirto. Haddii aad horey noola jirtayna waxaad la wadaagtaa saaxiibadaada. Kanaalkeena wuxuu gaaray 1600 oo qofood ayuu gaaray. Weli shuruudihii maana buuxinin daawashadii, saacadihii daawashada ayaa weli inoo haray. Marka haddii aad nagu casuumi kartid saaxiibadaada, 3 saaxiibadaada ka mid ah, waa inoo farxad. Waa inoo muuqaalka xiga. Kanaalkana waa kanaalka dhalinyarada. Ciao.